soddon sano kadib waxa uu maamulka gobolka banaadir ku guuleystay qaadista imtixaanaadka fasalka sideedaad ee dugsiyada gobolka banaadir kaas oo maanta daafuray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish dugsiga hoose dhexe iyo sare ee 15 May ee degmada Warta Nabadda ayuu ka dhacay furitaanka maalinta koobaad ee qaadista imtixaanaadka fasalka sideedaad waxaana tirada guud ee ardayda u fadhiisatay imtixaanaadkani ay yihiin 26,494 arday. duqa magaalada muqdisho wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir iyo maamulka degmada Warta Nabadda ayaa kormeeray qeybaha lagu qaadayo imtixaanaadkani iyagoo warbixin ka dhageystay xubnaha ilaalinaya qaadista imtixaanaadka iyo sidoo kale agaasimaha waxbarashada gobolka banaadir waxa ayna ka warbixiyeen sida ay wax u socdaan. mas-uuliyiintani ayaa inta ay kormeerka ku jireen waxa ay la dardaarmayeen ardayda u fadhiisatay qaadista imtixaanaadka fasalka sideedaad iyagoo u rajeeyay guul iyo sidoo kale inay ka miro dhaliyaan hankooda waxbarasho. agaasimaha waxbarashada gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar sheekh nuur ayaa ugu horeyn ka warbixiyey ardayda maanta u fadhiisatay imtixaanaadka fasalka sideedaad ee dugsiyada gobolka banaadir. waa maalin taariikh ah, waa maalin ugu weyn haddaan nahay bahda waxbarashada ee wasaaraddu u tahay hooyada gobolka banaadir khaasatan agaasinka waxbarashada gobolka banaadir oo hawshan hogaaminayay fasalka sideedaad oo hogaaminayay waxaan leenahay mar labada mahadsantihiin. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir basma camri jaketi waxa ay sheegtay in maamulka gobolka banaadir ay ka go-an tahay horumarinta adeegyada aasaasiga ee bulshada. aadaan usoo dhaweyneynaa insha allah waxaan rajayneynaa ardaydana inay ku dadaalaan 10% ayaa aaday iskuulaadka 22 iskuul ay dawladda federaalka hadda ay maamushaa. waxaan rajayneynaa intaas in ka badan in mar dhowna annagana aan ka shaqeyno haddaan nahay maamulka gobolka banaadir inay noqdaan iskuulaadka ku yaala magaaladan si lacag la'aan in lagu dhigto awoodda gaarna aan iskugu geyno. muwaadanka canshuur bixiya waa inuu helaa waxbarasho lacag la'aan ah, waa inuu helaa caafimaad lacag la'aan ah, waa inuu helaa adeega aasaasiga uu ku leeyahay dawladdiisa. wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya ahna kusimaha wasiirka mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulle jaabir ayaa dhankiisa tilmaamay doorka ay wasaaradda waxbarashada ku leedahay daadejinta adeegyada waxbarasho ee dalka. annaga ka wasaaradda haddaan nahay sanadkan hoggaanka imtixaanka sideedaadka sida ay runtii ay tahay gobollada ayaa hogaaminayay isteedyada iyo caasimadda annagana waxaan ku lahayn door farsamo ayaan ku lahayn. marka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guud ahaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo gobolka sidii uga wada shaqeeyeen. waxaa kaloo muhiim ah waayadan waxaa socday dadaallo badan oo aan rabnay in ka wasaarad haddaan nahay isteedyada iyo gaar ahaan caasimadda iyo gobolkaba inay kula wareegaan waxbarashada qaybaheeda kala duwan ay mas-uuliyaddeeda gaarka leeyihiin sida iskuullada iyo macallimiinta iyo arrimo badan oo la xiriira. waxaan nahay wasaaraddii xukuumaddii u horreysay oo ku dhiiratay in ay ka shaqayso sidii ay gobolka u heli lahaayeen ama ula wareegi lahaayeen arrimaha waxbarashada. tilaabadan waxay qayb ka tahay oo maanta aad u joogtaan in gobolka maanta uu maamulo imtixaanka sideedaadka waxay horudhac u tahay tilaabooyin kaloo daba yaalla oo ah inay la wareegaan adeegii waxbarashada heer gobol iyo heer degmo inay la wareegaan. runtii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasiirka wasaaradda waxbarashada xildhibaan cabdullaahi goodax barre iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud iyo dhammaan shaqaalaha oo ayagana qayb ka ahaa processkan hadda socda oo aan rabna in gobolka ay kula wareegaan. waxaan rabaa guud ahaan inaan u rajeeyo ardayda Soomaaliyeed ee maanta wada galaysa imtixaanaadka sideedaadka in guul inaan u rajeeyo. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish oo warbaahinta la hadlay ayaa guul ku tilmaamay in 30 sano kadib uu maamulka gobolka banaadir ku guuleystay qaadista imtixaanaadka fasalka sideedaad ee dugsiyada gobolka banaadir. waa tallaab wanaagsan oo hore loo qaaday oo in muddahaba ay bulshada ku nool gobolka banaadir ay sugaysay. guulahaas ilaaha ku mahadsan. waxaan kaloo rabaa halkan inaan uga mahad celiyo madaxda dowladda federaalka ay u horeeyaan madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu. sidoo kale wasaaradda waxbarashada hay'adaha tacliinta sare wasiiru dowlaha oo hadda kuusimihii ah iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud oo si aan kala har lahayn isugu dhabar jabiyey suuragelinta arrintan.
xaqiiqdii waxaa la soo gaaray guulo la taaban karo waxaana rajaynayaa inay halkeedaas ay ka sii socon doonto anigoo aaminsan in biidni illaahi alkariim lagu guulaysan doono howlahaas imtixaankii shahaadiga ahaa ee sideedaadka si rasmi ah ayuu u furan yahay anigoo rajaynaya 4 maalmood ee soo socota inuu u socon doono ardada sideedaadka ee gobolka Banaadir kadibna aan rajaynayo inuu xigi doono imtixaankii dugsiga sare oo asagana aan rajaynayno mar dhow inay maamulka gobolka Banaadir la wareegi doonaan balse hadda ay wasaaraddu gacanta ku seexay Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.